Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Mulkiilaha Official. Fadlan haddaad cusubtahay channelkan ama ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato subscribe noo saar. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Maanta waxaan doonaynaa 6 qodobood oo ku saabsan dabeecadaha dumarka. Marka la socod wanaagsan. Dumarku waa noole hawl badan, caqli badan, fikir badan, isla markaana ay adag tahay in la fahmo. Badankoodu waxay leeyihiin shakhsiyada aan lahayn dhinac sax ah loogu hagaago. Mararka qaarna waxaa dhacda in aad garan weydo ama aad fahmi weydo waxay doonayaan iyo waxay diidan yihiin. Iyadoo ay taasi jirto, haddana dumarku waa noole qalbi jilcan oo wax yar ay ku farxi karto, yaabo kalena ay ka cadhaysiiyaan. Markaana aad u sasaban karto, aadna u raadin gelin karto si loo fudud. Haddii aad tahay qof garanaya qaabka loola macaamilo dumarka, waxaan ku wadaagi doonaa 6 dabeecadood ay leeyihiin dumarka. Soo marka aad barato oo si fiican ugu fiirsato ay ka caawinayaan inaad fahanto dhaqanka dumarka iyo la tacaamulkooda. Mawduucan haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa anigoo ah Munir Leo. Dabeecadda koowaad, fahmidda beenta. Inaad ogaataa in dumarku ay awood u leeyihiin markaad runta u sheegayso iyo markaad beenta u sheegayso inay fahmaan. Waxayna laba jibaar ka badan yihiin intaad beenta u sheegayso ninka ragga ah inay fahmaan. Waxayna inta badan ka dareemaan qofka jirkiisa, qofka dhaqdhaqaaqiisu ayay ka dareemaan. Waa awood dumarka u gaar ah inay dareemaan qofka beenta u sheegaya. Qofka ragga ah waxay ka dareemaan dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalkiisa. Waxaad rabtaa inaad been u sheegto, waayo isla markiiba way ku fahmaysaa. Waxaana macquul ah in xiriirkiinu dhaawac soo gaadho. Haddii ay jirto gabadh aad been markasta aad u sheegto been aan haddana ku fahmin, ogow waa gabadh aanay doonayn inaad kala tagtaan ama ay ku weydo. Way ka dareemaysaa inaad been u sheegayso, laakiin ma rabto inaad iskhilaaftaan ama sidaa kugu weydo. Dabeecadda labaad, dumarku waa kuwa matalis badan. Mar alaala markay kaa doonayso inaad ahmiyad siiso ama aad waqti siiso, waxay mar walba isku dayaysaa inay kula timaado xanuun aan jirin ama waxyaabo aan jirin inay kula timaado si aad ugu beerjilaacdo, aad mar walba ahmiyad u siiso, kaaga hesho daryeel badan. Dabeecadda saddexaad, waa kuwa jecel mar walba inay mushaakil abuuraan. Inuu ninku fahmo in dumarku mararka qaar sabab la'aan wax canaantaan, inay abuuraan mushkilad waqti aan ku habboonayn. Tan waxa weeye inay jeclaysanayaan ama ku raaxaysanayaan waqtigaas aad mushkiladda xalinaysaan. Ninku la qabsado xaaladaas in ay dumarku wax agtooda wax caadi ka tahay. Dabeecadda afraad, dumarku waa kuwa isbedel badan. Waxaad arkaysaa gabadh kula faraxsaneed 5 daqiiqo ka hor, haddana isla markiina isbedeshay in yar kadib diiqadoonaysa. Aad aragto in yar kadib iyadoo diiqadoonaysa ay murugooto, aad isweydiiso waxa dhacay. Inay tahay dabeecad caadi ah dumarka agtooda. Aamus oo hana isku mashquulin oo dhageyso, hana isku murjin kirin sababtu inay tahay qalad adigu samaysay. Dabeecadda shanaad, dumarku waa kuwa jecel inay hadlaan markasta. Mararka qaar xataa waxaa dhacda inay kula soo hadlaan adigoo mashquula ama adigoo shaqo ku jira si ay kugu sheegaan kabaha soo iibsatay midabkooda, si ay kugu sheegto kabaha soo iibsatay midabkooda. Marka sidaa darteeda waa dumarka jecel inay markasta hadlaan. La yaabin, dulqaadka badi oo lahaw garashadeeda. Dabeecadda lixaad, waa noole fududeeya. Gabadhu markasta waa mid jecel inay wax ka ogaato waxyaalaha quseeya iyo waxyaalaha aan quseyn. Markay rabto inay ku weydiiso aniga ka hor xiriir ma lahayd, ma rabto inaad ku jawaabto haa kadibna aamusto. Doonaysaa inaad u sheegto inaad iyada ka hor xiriir lahayd kadibna uu dhamaaday xiriirkii. Qofkaasuna aanu ahayn qofka ugu habboonaa, adiguna aad ku faraxsan tahay inaad iyada heshay. 6 qodobood ayaanu ka soo qaadanay dabeecadaha dumarka. Haddii aad gabadh tahay, ma isku aragtay dabeecadahan? Haddii aad nin tahay, teebaad ka faa'iiday oo hore u ogeyn dabeecadahan? Nagula wadaaga
qaybta commentska adigoo kasoo dhiibanaya ra'yigaaga. aad baad mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. fadlan haddaad video ka hesheen subscribe inoo saar, like inoo raaci, commentina ra'yigaaga kusoo qor. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa inaad videogan ka heli doontaan. videoga xiga intaan ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo. iminkana waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fi amaanillah.